Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhowaada warbixinaanu idinku diyaarinay kufsi. Haddaba marka ay dhagihiina soo gaadhay kelmadda kufsi waxaad isweydiinaysaan in uu yahay dhibanuhu ma gabadh baa ma caruur baa mise waa waayeel. Run ahaantii cilmi baadhistani waxa ay daaha ka rogtay intaas inaanay jawaabtu midnaba ahayn. Waxa inoo daadihin doona inteeda dambe barnaamijka mudane Nimcaan Jikre. Haddaba intaynaan u gudagelin fadlan share, subscribe iyo like ha ilaawin. Kubsiba haddii qof dumar ah ay xoogtanin digniye waxaa suurtagal ah in daawadayaasha qaar ay dhibsadaan warbixintan. Marka nin xoogo qof dumar ah isagoo aan fasax ka haysan waa kubsi, balse ka waran marka qof dumar ah ay xoogtanin. Dalal badan sida Britain sharci ahaan taasi kubsi ma aha, balse cilmi baadhis cusub ayaa ku talinaysa in sharciga lagu qoro in labada dhacdo ay isku mid yihiin. Dr. Sobhan Weir oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Lancaster ayaa soo bandhigtay cilmi baadhis ku saabsan galmada qasabka ah, waxaanay ku wareysatay in ka badan 200 oo qof oo rag ah. Wixii ka soo baxay baaritaankeeda ayaa la baahiyay isbuucan. Waxaa inta ugu badan lagu saleeyay wareysiyo qof ay uga qaaday 30 nin muddadii u dhaxaysay May 2018 ilaa July 2019. Waxay daha ka rogtay faahfaahin dhammaystiran oo la xidhiidha in qasbidu ay dhacdo ayna saameyn weyn yeelato sida nidaamka cadaaladda uu uga jawaabo. Waa la qariyay dhammaan magacyada dadka qaybta ka ahaa baaritaankan, balse mid ka mid ah waxaa magaciisa lagu bedelay John. John wuxuu sheegay in markii ugu horreysay uu dareemay in dhibaato nafeed ay u geysatay xaaskiisa kadib markii uu arkay dhowr dhacdo oo la yaab leh. Wuxuu geeyay cisbitaal. Dhowr saacadood kadib waxaa loo sheegay in dhibaato maskaxdii ay jiri karto. 6 bilood kadib nafteeda dhibaato uma aysan geysan, balse waxay dagaal ku bilowday John. Fadhiga ayaan joogay, jikada ayay ka soo baxday feedh ayay igu dhufatay sanka wayna qososhay ayuu yidhi John. Dhibaatadu joogto ayay noqotay. Waxay daba ka soo qaadan jirtay cisbitaalka ayuu yidhi John. La talin ayaa loo sameeyay waxaana loo diray dhakhtar cilmi nafsi, balse ma aysan tegin xilligii ballanta dhakhtarka. Markay guriga ku soo noqoto ee ay shaqada ka timaado way xoogi jirtay markasta ayuu yidhi. Waxay gaadhay xaalad xun ilaa aan arkay anigoo ka baqanaya marka ay shaqada ka timaado. Xilli waxaa jirtay markii John subaxii uu soo tooso uu arkay isagoo ku xidhan sariirta. Kadib waxay bilowday inay madaxa uga garaacdo sameecad weyn oo sariirtiisa dhankeeda tiilay. Waxay Maria ku xidhay lugihiisa waxaanay ku qasabtay inuu u galmoodo. Maadaama uu baqayay una dareemayay xanuun, John wuu awoodi waayay taa kadib. Garaacidii ayay ku sii waday waxayna 30 daqiiqo ka tagtay isagoo sariirta ku xidhan. Markay soo noqotay ayay sariirtiisa ka furtay. Muddo kadib way diiday inay ka hadasho wixii dhacay. In badanba kama soo wareegin waxay qaaday uur waxaana yaraysay rabshadii, balse markii ay dhashay kadib John wuxuu habeennimo isarkay isagoo sariirta ku xidhan mar kale. Wuxuu yidhi waxay igu qasabtay inaan liqo kiniinka dareenka kiciya. Waxa kale oo aan samayn karin ma jirto ayuu sheegay. Kadib waxaan aaday musqusha waxaan iska hoos fadhiistay showerka. Wuxuugaa kadib waxaan aaday hoos. Waxa ugu horreeyay ay igu tiri wuxuu ahaa maxaa lagu cashaynayaa. Markii uu John damcay inuu dadka kale uga sheekeeyo wuxuu la kulmay aaminad la'aan sida uu sheegay. Waxay dadku i weydiinayeen sababta aanan guriga uga bixin. Haddaba wuxuu ahaa gurigii aan carruurteeda u iibin lahaa. Dhanka dhaqaalahana waxaan u xidhnaa xidhiidhkaasi ayuu yidhi. Weli waan aamini lahay waxayna ila mid ahayd maxaad iskaga celin weyday. Marar badan ayaa la i weydiiyey markaa taas way fududahay in la iska dhaho, balse way adag tahay in la sameeyo. Waxaa fiicnaan lahayd inaan xilli hore ka cararo meesha. Waxyaabaha uu sheegay John waxaa sidoo kale la kulmay rag kale oo la wareystay sida ay Dr. Weir ka mid ah. Arrimaha la ogaaday waxaa ka mid ah xadgudubka iyo galmada qasabka ah, balse waxay si guud diiradda u saartay rag iyo dumar. Arrintaasi waxaa aas-aas u ah hal qodob oo baahsan, waana xadgudubka guryaha ku dhaca ee dadka bannaanka aysan ogeyn. Dhibaatooyinka in dadka kale aysan aaminin in nin ay xaaskiisu garaacdo kuna xadgudubto waxaa sidoo kale ka sheekeeyay dadkii lagu wareystay cilmi baadhista. Waad ku raaxaysanaysay haddii kale waxay ahayd in boolisku ku wargeliyo si degdeg ah. Nin ayaa sheegay in hadalkaas uu kala kulmay booliska. Nin kale ayaa yidhi waan ka baqanayay inaan ka hadlo waana ceeb. Markaan ka hadlo nalama rumaysanayo sababtoo ah rag baynu nahay. Sidee nin rag ah loogu xadgudbi karaa? Eeg waa nin. Waxyaabaha kale ee la ogaaday waxaa ka mid ah
ragga markasta waa lagu ceebaystaa inay ka hadlaan in la kubsaday. Waxaa suurtagal ah inay ka hadlaan xadgudubka kale iyagoo oon soo hadal qaadin kubsi. Saamaynta maskaxeed aad bay u xumaan kartaa, sida walbahaar iyo inuu qofku ka fikiro inuu isdilo ama ka cararo raaxada nolosha. Ragga qaar waxay ka sheekeeyaan in si joogto ah dhib loogu geystay, qaarkood iyaga oo ilmo ah ayaa la kubsaday, qaarna waxay ku xadgudub kala kulmeen dad kala duwan oo ay rag ka mid yihiin. Qaarkood waxaa ka guuxa fikirkooda xun ee ay ka aaminsan yihiin booliska, hannaanka cadaaladda iyo sharciga. Hal arrin oo khuraafaad ah oo baaritaanka wiilal lagu beeniyay waxaa ka mid ah in qof rag ah la kubsado inay tahay arrin aan dhici karin, sababtoo ah ragga way ka xoog badan yihiin dumarka. Khuraafaadka kale waxa uu sheegay in raggu ay wax wanaagsan u arkaan fursad kasta oo qof dumara ay uga tagi karaan. Dareenka raggu waa uu kici karaa xataa haddii ay baqanayaan, xanaaqsan yihiin ama xanuun ay dareemayaan, ayay tidhi. Waxaa kale oo jirta cilmi baadhistu ay muujinaysaa in dumarku xitaa ay wax dareemayaan marka la kubsanayo, sababtoo ah jidhkooda ayaa jawaab bixinaya. Tani waa xaaladda rag iyo dumar ee aan si wanaagsan looga hadlin, balse caddayn muuqata loo hayo. Wiila waxay sheegtay in inta badan dadka ka qayb galay cilmi baadhista ugu dambeysay in qasabka ragga ay u arkaan kubsi. Qaarna waxay ka walaacsan yihiin in arrintani aysan ku horreyn shuruucda dalal badan sida UK. Waxaa kale oo walwal ka jira in dad badan aysan arrintan u garanaynin in ay kubsi tahay. Mid ka mid ah 8 tale ee loo soo jeediyay waxay tahay in isbeddel lagu sameeyo sharciga kubsiga iyo qasabka iyo in arrintaasi si dhab ah loo qaato. sida ay cilmi baadhisyo kale sheegayaan, waxaa jirta tan oo kale oo aan ahayn in ragga la kufsado ama dumarka, ee ay dhacdo in dumar kufsadaan ragguna ragga kufsadaan. Haddaba dhacdooyinkan la yaab kale ee isa soo taraya ayaa lagu baahiyey cilmi baadhistan iyo kuwo kale oo la sameeyey. Daraasadahan waxay daaha ka qaadeen waxyaabo cajiiba oon hore loo maqal. daawadayaal, haddaba intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa dhammaanba barnaamijkii aan idinku talagalnay inaan isbuucan idinla wadaagno. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamidana waa anigoo Khadar Haybe, sidoo kalena waxaa idiin daadihinaya barnaamijka Nimcaan Xasan Jikre. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. ha ilaawina asxaabtan hawada ku midownayay inaad ku xidhnaataan channelka TV5S channel. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay fadlan saar subscribe, hadduu muuqaalkani ku xiise geliyena like. waananu kaaga mahadcelinaa daawade.